Waxaanu ka hadlaynaa sifooyinka shakhsiyadda wanaagsan ama qofnimada wanaagsan. Qof walba oo bini'aadan ah wuxuu leeyahay shakhsiyad isaga u gaar ah ama sifooyin isaga u gaar ah. Haddaba waxaan kuu sheegayaa sifooyinka ay leeyihiin dadka leh qofnimada wanaagsan ama shakhsiyadda wanaagsan. Lambarka koowaad waa daacadnimada. Dadka badanaa qofnimada wanaagsan leh waa kuwo daacad ah oo jecel inay qiyamkooda ama sharaftooda inay ilaaliyaan, ma aha kuwo isku daya khiyaanada. Lambarka labaad waa kuwo yaqaana bini'aadantinimada oo aan dadka ula dhaqmin sida xayawaanka oo kale ama dadka ay naxariistu ka maqan tahay oo kale. Lambarka saddexaad waa dad isku kalsoon, waa dad jecel inay qabtaan hawlahooda ama ku mashquulaan danaha iyaga u gaarka ah. Lambarka afraad waa dad aan isla weynayn, waa dad aan bulshada aan iska weynaysiin. Badanaa waa dad hoos isku dhiga oo ismuujiya ama muujiya inay hooseeyaan oo kale, ma jecla dadka inay iska sarraysiiyaan. Lambarka shanaad waa kuwo geesiyaal ah marka ay timaado xaqiiqada. Badanaa dadka shakhsiyadda wanaagsan leh waa kuwo aan xaqa ka aamusin ama waa kuwo mar walba wax walba runta ka sheega, sababtoo ah ma jecla inay hoos u dhigaan shakhsiyadooda. Lambarka lixaad waa dad lagu kalsoonaan karo. Badanaa dadka shakhsiyadoodu ay wanaagsan tahay ama qofnimada leh waa kuwo la aamini karo, waa kuwo badanaa ilaaliya qiyamkooda ama sharaftooda, waa kuwo naftooda aan u qiimo tirin waxyaabaha raqiiska ah. Lambarka toddobaad waa kuwo adkaysi leh. Badanaa dadka shakhsiyadda wanaagsan leh ama qofnimada wanaagsan leh waa kuwo adkaysi leh, waa kuwo jecel inay caqabad walba ay ka gudbaan, ma aha dad isku jilciya waqtiga markuu ku xumaado. Lambarka siddeedaad waa kuwo isxakameyn kara markii ay la kulmaan waxyaabaha qaar, waa kuwo naftooda ka adag, waa kuwo naftooda u hoggaamiya meesha wanaagsan, ma aha kuwo naftooda ama shahwaadkooda kuwa raaca. Dadka shakhsiyadda wanaagsan leh badanaa waa kuwo ka adag waxyaabaha naftooda ku xeeran, ma aha kuwo naftooda ay xukunto. Lambarka sagaalaad waa kuwo xushmad badan, waa kuwo dadka qadariya. Badanaa dadka shakhsiyadda wanaagsan leh ama qofnimada leh waa kuwo dadka qadariya, sidoo kale iyagana bulshadu ay qadariyaan. Sababtoo ah haddii qof walba aad qadariso oo aad dadka xushmayso, adigana waa lagu xushmaynayaa. Marka shakhsiyadda wanaagsan ama shakhsiyadda qofnimada wanaagsan waxaa ka mid ah inaad dadka aad qadariso sida iyagana kuu qadariyaan. Badanaa waa waxyaabaha cajiibka ah ama sifooyinka cajiibka ah oo ay leeyihiin dadka qofnimada wanaagsan leh. Lambarka tobnaad waa kuwo naxariis leh, sababtoo ah waa kuwo jecel inay dadka u naxariistaan, kuwa ka iltaal hooseeya ama kuwa noloshooda ay ku sugan tahay xaaladaha adag. Waxaan filayaa muuqaalkan inaad ka faa'iiday sifooyinka shakhsiyadda wanaagsan ama qofnimada wanaagsan. Waxaan filayaa muuqaalkan haddaad daawatay inaad ka faa'iiday shakhsiyadda dhabta ah ama qiyamka shakhsiyadda wanaagsan. Waxaan kugula talin lahaa haddii aad jeceshahay inaad muuqaaladan oo kale aad daawatid mar walba, inaad nagu xirnaatid oo aad nala joogtid. Annaguna waxaan kuu soo gudbin doonaa muuqaallo aad ku xiisi gelin doona, noloshaadana wax badan ka beddeli doona. Mar walba adiga ayaan ku dhiirigelin doonaa. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, ha naga ilaawin inaad subscribe noo saarto. Mahadsanid.